waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena Xogta Dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno arrimihii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan. Dooxada Banshiir oo la hareereeyay degmooyin dib loo qabsaday, Daalibaan oo sheegtay inaan la kordhin doonin xilliga ciidamada shisheeye ka baxayaan dalka, iyo dhismihii dawladooda oo ay dib ugu dhigeen inta askariga ugu dambeeya ee Mareykanka ka baxayo. Ku soo dhawaada barnaamijka. kooxda Daalibaan waxay xoojisay wada tashiyadeeda gudaha ee ku aadan hanaanka siyaasadeed ee mustaqbalka ee Afghanistan, waxayna diideen in la kordhiyo xilligii loo qabtay inay ciidamada shisheeye kaga baxaan dalka, iyadoo ay jiraan tilmaamo reer galbeedka ka imanaya oo ku aadan suurtagalnimada xilli kordhintaasi. halka ay Taalibaan go'doomin ku soo rogeen gobolka Banshiir oo ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqooda. afhayeenka Daalibaan Subaxillaahi Mujaahid ayaa waxa uu sheegay in dawladda mustaqbalka ee Afghanistan ay ka koobnaan doonto dhammaan qaybaha bulshada iyo saraakiishii ka qayb galay dawladdii hore. Mujaahid oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Kaabul waxa uu intaa ku daray in dhaqdhaqaaqu ay leeyihiin mas'uuliyadda in la gaadho amniga iyo badbaadada Afghanistan. wuxuuna sheegay in dadka reer Afghanistan ay ku noolaayeen nolol dulli ah 20 sano ee la soo dhaafay, isagoo adkeeyay in Daalibaan aanay dan ka lahayn wixii tegay, balse ay eegayso mustaqbalka oo ay bog cusubna u fureen oo aanay doonayn in qofna laga argoosto. marka laga hadlayo dawladda soo socota, 2 ilood oo Daalibaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP Isniintii in dhaqdhaqaaqu aanay ku dhawaaqi doonin dhismaha dawladooda ka hor inta aanu Mareykanku dhammaystirin hanaanka ka bixitaanka ciidamadiisa. ilaa wareedka ka tirsan Daalibaan ayaa waxay yiraahdeen waxaa la qaatay go'aan ah in dhismaha dawladda aan lagu dhawaaqin iyadoo uu joogo hal askari oo Mareykani ciidda Afghanistan. intaa waxaa dheer, Daalibaan waxay ku dhawaaqday Isniintii inaanay aqbali doonin kordhinta waqtiga loo qabtay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan oo ku eg 31 bishan August, kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku hanjabay inuu kordhin doono arrintaasi. Good afternoon. I want to speak today to the unfolding situation in Afghanistan, the developments that have taken place in the last week, and the steps we're taking to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan. afhayeen u hadlay xafiiska siyaasadda ee Daalibaan Suheyl Shaahin ayaa ka digay inay cawaaqib xumo ka dhalan doonto haddii maamulka Biden dib u dhigo ka bixitaanka ciidamadiisa ee Afghanistan. waxaana uu sheegay in Mareykanku aanu u baahnayn inuu kordhiyo waqtiga uu qabsaday inuu militarigiisa kagala baxo Afghanistan. wuxuuna intaa ku daray in kordhintani ay abuuri doonto kalsooni darro u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa iyo Mareykanka, isagoo xusay in haddii dadka Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan wuxuu ku tilmaamay qabsashada iyo gumaysiga, ay taasi horseedi doonto falcelin ka timaada shacabka Afghanistan, sida uu hadalka u dhigay. sarkaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa Daalibaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters Isniintii in ciidamada shisheeye ee Afghanistan aanay doonayn oo u baahnayn inay kordhiyaan waqtiga loo qabtay inay ka baxaan dalka oo ku eg 31 bisha August. Biden ayaa hore waxa uu sheegay in laga yaabo in ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan kadib marka uu dhamaado xilligii loo qabtay ee 31 August si loo daadgureeyo buuri dadka Mareykanka. waxaana intaa ku daray inay jiraan wada hadallo socda oo ay la yeelanayaan militariga Mareykanka oo ku saabsan muddo kordhinta, laakiin wuxuu rajo ka muujiyay in dalkiisu aanu ku qasbanaan doonin inuu kordhiyo muddada, isagoo xusay in arrintu ay ku xiran tahay hadba heerka ay gaadhsiisan tahay hanaanka daadgureyntu. afhayeenka xafiiska siyaasadda ee Daalibaan Maxamed Naciim ayaa Isniintii waxa uu yiri gobolka Banshiir waa qayb ka mid ah dalkeena, waxa ka dhacayaana looma dulqaadan karo. isagoo u waramayay telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqoodu ay doonayaan inay dhibaatooyinka Afghanistan lagu xalliyo wada hadal iyo hab nabadeed. waxaana uu sheegay in dadku aanay ogolaan doonin hal ama 2 shakhsi inay kicin maran si ay dhibaatooyin u huriyaan oo dadka u kala qaybiyaan, isagoo tilmaamay in qofkii doonaya inuu dhibaato ka kiciyo dalka oo dawarsado dibadaha taasi aanay wax u taraynin oo aan la aqbali doonin dadka reer Afghanistan ay ka daali.
dhinaciisa afhayeenka Daalibaan Subaxilaahi Mujaahid waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqu ay dib loo wareegeen gacan ku haynta 3 degmo oo ka tirsan gobolka Baqlaan oo ay ciidamada daacadda u ah dawladda waqtigeeda dhamaaday dib u qabsadeen toddobaad ka hor. Subaxilaahi ayaa ku daray bartiisa Twitterka in dagaalyahanada dhaqdhaqaaqu ay hareereeyeen gobolka waqooyi bari ee Banshiir kadib markii tiro ka mid ah hogaamiyaasha militariga ee ka soo horjeeda Daalibaan ay diideen inay soo wareejiyaan. wuxuuna sharaxay in Daalibaan ay isku dayayaan inay xalliyaan xaaladda gobolka iyadoo loo marayo gorgortan. telefishinka Al Jazeera oo soo xiganaya ilaa ka tirsan dhaqdhaqaaqa Daalibaan ayaa waxa uu sheegay inay dagaalyahanada u suurto gashay inay galaan dooxada Banshiir waxayna sugayaan buuri awaamiirta hogaamiyaasha militariga si ay weerarka ugu qaadaan xarunta dawladda ee gobolkaasi. telefishinku waxa uu kale soo xigtay ilaa ka tirsan dhaqdhaqaaqa oo sheegay inay wadooyin xidhiidh la fureen Axmed Shaah Mascuud oo ah wiilka uu dhalay hogaamiyihii hore Axmed Shaah Mascuud waxaana uu sheegay in xidhiidhka isgaarsiineed uu yahay mid lagu doonayo sidii nabad loogu wareejin lahaa gobolka Banshiir wadaxaajoodkaasina uu yahay mid weli socda. xogtu waxay sheegaysaa in Daalibaan inay dhowaan u diri doonto wafdi arrintaas ka hadlaya gobolka Banshiir oo Axmed Shaah Mascuud kala xaajoon doona damaanad qaadka lagama maarmaanka uu arko ee uu codsaday. gobolka Banshiir ee waqooyi bari ka xiga Kaabuul waxaa isku urursaday halaagii ciidamadii dawladdii hore ee firxaday iyo kooxo maleeshiyada. gobolkaas oo ah meel ay ku xooggan yihiin dadka ka soo jeeda Daalibaan inta badan waxaa jamhad kaga dhawaaqay hogaamiye Axmed Mascuud. Daalibaanna gobolka ma ay xukumin intii ay ka talinaysay waddanka 1996 ilaa 2001. afhayeenka jamhadda Axmed Shaah Mascuud oo lagu magacaabo Cali Meysam Nazari ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP inay diyaar u yihiin halgan dheer laakiin ay ka doorbidayaan inay Daalibaan kala xaajoodaan dawlad loo dhan yahay. dadka ku dhow Axmed Shaah Mascuud ayaa sheegay in ka badan 6,000 oo dagaalyahan oo ka hadhay militariga iyo ciidamada gaarka ee dawladdii hore iyo sidoo kale kooxo maleeshiyaad deegaanka ku ah ay isku urursadeen dooxada iyagoo wata diyaarado helikobtar iyo gaadiid dagaal waxayna sheegeen inay dayac tireen qaar ka mid ah gawaarida gaashaaman ee midowgii Sofiyeeti lahaan jiray. diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa shaki geliyay awoodda kooxaha halka isugu yimi iyo inay iska caabin wax ku ool samayn karaan marka loo eego kaalmo la'aanta dibadda iyo baahida loo qabo dayactirka iyo joogteynta hubka.